السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan mahadcelin u sameeyaa ururkan hawsha adag soo galay. waxaan mahadcelin kala siinayaa dhalinyarada ka qayb gashay muxuu u soo babac dhigtay in ay wadankoodii wax geliyaan iyagoo weli curdin ah oo high schoolkii ku jira. horta anigu hadal waa la dhameeyey, waxa keliya doonayna wax keliya iraahdo. taasi waxa weeyaan kelmadda volunteerism naftaada iyo waqtigaaga u huraysid wax dan guud ah. taasi aad iyo aad bay muhiim tahay. horta waa taariikhda Soomaaliya haddii dib loo eego halganka aynu u soo galnay inaynu iska xoreyno ninkii dictatorka ahaa wuxuu ka bilaabmay volunteerism. dhalinyaro isu tagtay oo doonaysay inay dhaqtarka Hargeysa nadiifiso oo la yidhi ma nadiifin kartaan ayuu ka bilaabmay halgankii lagu xoreeyey Soomaaliland. marka taa aad ka timaadid markii dagaaladu dhaceen ee SNM laftigeeda markii la abaabulayey mushaharana lama siinaynin, dad volunteers ah oo ka diiray dhibaatada dadkooda iyo dalkooda la soo daristay ayaa intay kaceen ka dhiidhiyey oo yidhi waa in wax laga qabtaa. taa laftigeedu waxay ahayd volunteerism. marka taa laga gudbo dagaalkii galnay ee dadkeeni madheen aynu soo noqonay iyada laftigeeda waxa laali waxa Soomaaliland lagu dhiso waa volunteerism. waxa laali waxa dhakhtar aad aragtaan iyo iskuulo ee la dhisay waxa lagu dhisay volunteerism. dad lacag iska ururiyaba maalin walba tuulo ka dhisa iskuul. masaajidada arkaysaan waxa lagu dhisay volunteerism. laakiin waxaad moodaa markaynu qarankeenii hantinay aynu maaragtay dimuqraadiyaddii hantinay in aynu hay-ad ku noqonay. waxa laali xashiishkii baa lala sugayay hay-ad wax walba hay-ad baa. marka horta maanta waa maalin farxad leh inay dhalinyaradii dareentay inaan waxa lacag ay muxuuha ugu baahan yihiin aanay jirin waddankooda xuu qabtaan. waxaa la odhanaya dad baa la tababaraya, wax loo tababaraya, iyagii baa dib lacag loo siinaya dadkii inta tababarka doonan lahaayeen. hay-adaha dhibaatooyinka ugu waaweyn inay gaadhsiiyeen waxaa ka mid ah qof la yidhi kaale dantaadii ka hadal oo $10 ugu siinayo dantiisa ka hadlo iyo basarka ku raaco. marka horta hambalyaan idin leeyahay dhalinyaradan isu timid ee tiri waxbaan wax ka qabanayna. anigu muddo badan oon waddanka ka maqnaa inkastoona 28 cabdikariin waddanka joogay aanan joogin. waqtigeyga inta spare timekayga oo dhan Soomaaliland meel lagaga hadlayo, wax loogu qabanayo, lacag loogu ururinayo, aqoonsigeeda lagu raadin baan taagnaa oon muxuu ahaa waqtigeyga ugu horeeyey. markaan halkan imid waxaa igu dhacay shoogii adduunka ugu weynaa. markaad istiraado 2 qof u yeedhba waxaa la horta shaaha iyo keega ayaa inaga bixinaya. heer baa la gaadhay maalin dhexdaasa xeer baa laga hadlayay in xeer la bedelo. xeerkiibaa markaa la yidhi muxuu ahaa waxaa loo baahan yahay funding, lacag baa loogu baahan yahay xeerkii looga shaqeeyo oo technical loo hayargareeyo waxaa loo baahan yahay lacag. waa la isaga waxaa la tolo hay-adeen u tugnaan xeerka bedelna. waa xeerkii constitutionkeena aynu ka bedelaynay ayaan sugaynaa inay ummad kale intaynoo timaado wax noo qabato. horta haddaynu isbedel doonayno iyo haddaynu horumar doonaynaba gacanteynaan ku haynaa. marka dhalinyarada maanta joogto waxaan leeyahay dadkii idinla midka ahaa ee da'diinaa joogay xilligii dagaal ku dhacay waa intii maratay, waa intii xabadda qaatay, waa intii naftooda hurtay, waa intii dhiigooda hurtay, waa intii laxaadkooda hurtay wayaan da'daynaas. idinku waxaa soo gaadheen heer alxamdulilah waddankiini nabad yahay, xor yahay. hooyadiinii gurigiinni aad idinkoo joogaa jaamacad tegaysaan Hargeysa markaynu dib u soo noqonay hortee jaamacad may yeelanin. Soomaaliland waxaa haysataan dhalinyaro badan oo ciidaa ka badan ma haysan waqtigeygii aniga waddankoodii ciidooda kuma haysan. madaxa la kaca dadkii la kacay oo dhani waxay muxuu ahaa ka hor yimid waxa weeyaan tacaddi, waxaa ka hor yimid waxa weeyaan caburis balaaya ka hor timid. adigu waxaad joogtaa dalkaagii oo xor ah, adigu oo xor ah. markaasaad intaad carabtay adigoo 20 jir ah oday daba gashay oo qabyaalo ku dhaqmaysa olada reer hebelkiyaa ka muuqday waxaan doonayaa inaan idin sheego maanta waddankeena haddaan doonayo inaan ka badbaadino qabyaalo musuqmaasuq waxaasoo dhan haddaan doonayo ka badbaadino
waxay ku soo biyashubmaysaa waxa weeyaan volunteerism hawsha maanta qabateen ee waddankeenu inuu muxuu ahaa communitygeenu caafimaad helo iskuuladu caafimaad helaan taas ayay ka bilaabaysaa haddaad dib ugu noqotaan waa wada taqaanaanee Barack Obama experience-kiisii ugu badnaa wuxuu ahaa community organizer maxay tahay dadkii mujtamacyadii deganaa meelihii ugu buursanaa waddankiisa ayuu abaabuli jiray oo ka hadli jireen biyaha oo ka hadli jireen housingka oo ka hadli jireen caafimaadkooda idinkeedin meel marka horta waa talaabadii ugu horeysay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waddanku halka wax ka laayahay wax ka dhaqaaqi kari laayihiin anigu siyaasi uma arko aqoon uma arko suldaan uma arko waayo xoogay ku dhaqaaqaan iyo laxaadka iyo maskaxda iyo baaxadda ku dhaqaaqaan waa dhalinyaradu haddii doonayso isbeddel inay waddanka keento iyadaa muftaaxi haysa markaad cid dooranayso ha ku dooranin waa reer hebel iyo nin hebel weeyaan waa inaad ku doorataa inuu yahay maxaa la yidhaahdaa qofku hawlkara oo wax qabanaya anigu muxuu ahaa mas-uuliyiinta waad aragtaa ayaa dhaweytoole wasiirka caafimaadka ugu xanuustay kiimka sankareed ee la bedelay xaguu caafimaad waa wasiirka caafimaadka xaguu caafimaad u tegay private hospital ya dhakhtarkii dadweynaha aynu wada baahnayn isaga naftiisa uu ku aamini waay kii isagu uu ka shaqaynay buu naftiisa ku aamini dhakhtar wuxuu tegay private waayo wuxuu baahidu u baahnaa ee caafimaad ma aha dhakhtarka hargeysay weynimadu kafinaya maaha waana wasiirkii caafimaadka ee ahayd inuu dhakhtarka wax ka qabto dhakhtarka markaad tagto waxaad moodaa istaankii baabuurta dad baa jiifa gidaarada la jiifa cuntaa lagu dhex karinayaa dad qofkii bukaanka ahaabaa meeshii joogaan dhakhtarradu ma joogaan yacni waa disaster waxa weeyaan dhakhtarkaasi marka dib u noqoto waa dhakhtarkii kacdoonkii SNM iyo kii waddanka lagu xoreynayaba uu ka bilaabay ayaa weli sidii aynu ku ogeyn after 40 sanadood ka bacda marka dhalinyaro meesha ka kaca isbeddel haddaad doonaysaan idinkeedu ku xidhan tahay haddaan dib ugu soo noqdo dhalinyarada maanta aynu xafladooda meeshan u joogno waxaan idin leeyahay aguuriyo muxuu ahaayey hambalyo waayo waxaa qabanaysaan wax ummadoo dhan iminka ka indhaya dhigalaada hormood baa ka timi halkaa ka sii wada wasalaamu calaykum waraxmatullahi